galab wanaagsan saaxiibayaal sidaa u dhantihiin mar kale waqti wacan ayaan idin rajaynaa sidaa u dhantihiin sida ballanteen aheedbo shax labaad inaan soo geli doono waxa ugu weynna waxay tahay codsigiina mar walba youtube-kan hore waxaa idinku sheegay youtube-kan idinka ayuu idin furan yahay baahidiina ayuuna ka tarjumaa wax walba aad soo codsataanna waa la soo geli doonaa waxaad fahamsaneenna waa soo sheegaysaa macnaa video laga soo sameynaa marka horta mid ugu koow waxaa waaye baahidiina maadaama asxaab badan ayaa waxay dhahday fadlan odis fiican noo soo dhig marka odiskana inta badan waxaa lasoo dhigi karaa marka ciyaaro badan ay jiraan oo kale ciyaarahan oo kale waa looga faa'iideysan karaa Europe League waaye iyo UEFA Conference League labadaas ayaan isku soo qabanay marka maanta oo kale waa looga faa'iideysan karaa xilliyada kale ayaa laakiin ciyaaraha adag oo kale inta badan looguma faa'iideysan karo laakiin kuwan oo kale waa looga faa'iideysan karaa marka waxaan rabaa horta marka horeeto shaxda aan soo dhigo fadlan daawo markaad daawato xaqiiqi waxbaa kaaga baxaya waxbaa ku darsan ani bini aadan aan ahay inkastoo shaxda markaan sameynaya keligay aan sameynin oo website badan iyo dad badan oo expert ku ah markaan arko oo ugu yaraan hal saac qiimeyn badan ku sameeyay kadib aan fikirkayga kusii beriya meesha ila quman waxbaa ka bedela waxbaa kusoo dara kadib horta shaxda soo dhiga adigana saaxiib saas oo kale waxaa laga yaabaa meel asleed oo kale saas ku fiicnaa lahayd inaa markaad ka bedeshid asaas aad ka dhigto waxaa laga yaabaa markay kuu toosto inay kuu toostaa laga yaabaa laakiin hadhowt haddii lacala meesha wax si ka noqdaan asaas maxaa ugu dhiibaa ina dhahdaa laga yaabaa marka waxaan iskaashata ma kufto haddaa iskaashano waxbaa hagaagayo marka inkastoo anaga shaxdeena boqolkiiba boqol aan ku dadaalno 98 iyo ugu oo tahay marka adigana saaxiib shaxda markaad daawato 10 ka baranaysa 10 badan aan idin baray oo handicap uu kamid yahay iyo 10 kale oo intaas ka sii badan marka fadlan video daawo video markaad daawato waxbaa kaaga baxay okay taasi waa taasi marka maanta waxaan isku soo qabanay conton odisku waa $56 halka inverts uu yahay 18 kooxood ka badan ayaa jir laakiin inta ugu macquulsan ayaan ka soo xulnay kow Shariif iyo Real Sociedad horta badi doonta caawa sida 90% uu raac laakiin aan dhihi maayo Real Sociedad way badinaysaa ama Brecha ayay galaysaa Stum ku qoran tahay iyo Lazio waxaa leenahay iyadana sida caadiga noo ahayd oo hadaad shaxda hor ku sheegnay 2 gool ayaa ka imaanayso oo kaliya ayaa leenahay tan saddexaad waa Arsenal iyo Boza Glimt kooxda ku qoran tahay Arsenal ayaa toos leena way badinaysaa mara waxaan rabaa inaad dhaw waxa ka imaanaysa 2 gool laakiin dhuruqa saaran oo waxba ma taas laakiin Arsenal ay badinayso waa iska cadda insha Allah Monaco iyo kooxdan kale idan waxaa leenahay Monaco iyo kooxdan waxa ka imaanayso 2 gool oo toos ah ayaa ka imaanayso waxa kale ku sii xiga Braga iyo kooxdan Royal Union ku qoran tahay Braga marka waxaa leenahay double chance ayaa hadda marka hadaad laga yaabo inaad ku fiican tahay ciyaaraha qaar waxaa dhigi kartaa hadda aaminsan tahay Braga inuu badinayso kale waa dhigi kartaa Braga badinayso waa dhigi kartaa laakiin aniga hadda waxaan ku xulnay because shaxda iskama soo dhigno sida hore idinku sheegay waxa waaye waa aad looga soo fikiraa marka hadda aniga double chance inaan saar Braga ii soo baxday okay Fenerbahce iyo kooxdan kaleeto idane Fenerbahce ayaan saaray double chance UEFA Europe League aan ku jirnaa wali Cologne iyo kooxdan kaleeto Cologne ayaa sidoo kale adeen waxaan saaraynaa double chance waa tan iyo UEFA Conference League waa qaybtan way isku dhex jiraan waxaan marka double chance Cologne inay badi kartaa ama Brecha gali kartaa caawa Villarreal iyo Austria kooxdan ku qoran tahay Villarreal waxa ka bedeli meeno toos way badinaysaa ayaa leenahay inay badisanana waa rajaynaynaa marka Roma iyo Real Betis waa kooxdan Roma oo Real Serie A ka ciyaarto runtii sanadkan aad ay u xoog badan tahay Real Betis oo La Liga waa iska yar tabcan marka mara waxa hadda maayna oo Real Betis ama saarta double chance Roma laakiin ma Roma way badinaysaa sidiina aan ku dhaafanayna marka hadda adiga ka cabsanaysa laakiin waa bedeli kartaa okay waxa kale ku sii xiga AC Oman iyo Manchester United maadaama shaxdii hore aan ku soo sheegnay inay United badi karto way bedo soo marka waxaan leenahay 2 gool ka imaanaysa bas kaliya
ay Stade Rennes iyo maxaa ku yiraahdaa kooxdan kaleeto isha Dynamo Kiev idana Dynamo Kiev iyo Dynamo Kiev iyo Stade Rennes waxaa leenahay Stade Rennes ayaa badanaysa oo toos ah ayaa leenahay idana waxa kale ku soo haray Freiburg iyo Nantes Freiburg iyo Nantes waxaa leenahay double chance waxaan saarnaa Freiburg inay badin karto caawin way badinaysaa horta iga qor wax badan aan ku dhaaway badinaysa kooxo badan hor ku soo sheegay wayna badisay midaan iga qor Freiburg caawid way badinaysaa okay kooxdan Slovak ku qoranta iyo Nice ha badinayso laakiin annaga waxaas oo dhan waa iska dhaafeena waxaan leenahay waxaa u isticmaalay tani handicap u isticmaalay oo ah Nice in looga badi karin 2 gool ayaa leenahay kooxdan Hertha qoranta iyo Fiorentina waxaa leenahay oo UEFA Conference League caawad ka ciyaareyso waxaa leenahay guud ahaan ciyaartani waxaa ka imaaneyso 2 gool kooxdan Zurich iyo PSV Eindhoven qoranta caawad toos waxaa leenahay PSV Eindhoven tan ayaa badinaysa ayadan la isku raac mar kale midaanan badi doonto sidoo kaleeto Red Star qorantahay iyo kooxdan kaleeto idan waxaa leenahay kooxdani Red Star inkastoo leeyahay Red Star badinayso oo afka isku raac laakiin anaga waxaa leenahay Brighton badis maadaama uu diskin uu badan yahay Malmo iyo Union Berlin waxaa ka imaanayso over 2 gool only waxaa leenahay 2 gool ayaa ka imaaday marka waa dhigi kartaa 1 gool ka imaanayso hadaa ku qanacsanto kale waa dhigi kartaa double chance Malmo waa saara kartaa ay sidii kor laakiin hadda 2 gool ka imaanaysa ku qiimeynayna kooxdan HJK iyo Ludogorets qoran tahay Ludogorets 1945 qoran tahay waxaa leenahay inkastoo kooxdan 1945 ay badinayso afka isku raac laakiin waxaa leenahay Brighton badis Roman hora u soo sheegnay marka dhamaan intaas ay ka kooban yihiin marka saaxiib adiga waa bedeli kartaa waxna waa ku dari kartaa laakiin marka hore shaxda daaw marka daawad xaqiiqo wax weyn ka baxay shaxda daaw aad baa u maasantii dhamaantii guulaadaya